maalintii loo anbabaxayay nabadeynta ceelaf weyn rag badan oo labada beelooda oo aad u tiro badan oo madax dhaqameed iyo siyaasiyiin iyo cid walba leh baa waxaan ku kulanay hoteelka la yiraahdo Ambassador Suldaan Maxamuud Guuleed khayr Allah siiye ayaa wuxuu soo jeediyay laba qodob oo ah waxaynu anbabaxaynaa dad aynu ka dhalanay oo aynu dhexdhexaad u nahay inaynu dhexdhexaadino ayaynu u anbabaxaynaa dadkeena iyo innagabana waxay nagu dhex jira xurguf ka dhalatay doorashooyinkii iyo wax la mid ah maadaama ay sidaas jirto horta waxa haboon buu yiri in labadeenan qolo laftooda ee wada socda aynu isdhaarsano inuu arrinta daacad ka nahay inaynu isdhaarsano inaynu dadka dhex u nahay meesha ayayna dab ku kordhinayna waxa kale haboon inaynu shir u qabano ummadda guud ahaan iyo gaar ahaanba labada beelood si ay xurguftaasi meesha uga baxdo oo dadka loo walaaleeyo oo kala fogaanshaha ka dhashay doorashooyinka iyo wixii la midka ah iyo xurgufaha hore ay meesha uga baxaan ayaa haboon inaynu la sameeyo raggii halkaa joogay waanu aqbalay arrinka waana soo dhaweynay aad iyo aadna waa uga mahad celinay waxa kale Suudaanku raaciyay iyo raggii la socday raaciyeen gogashaana annaga dhigayna oo martiqaad ka sameeynayna Suldaan Maxamed Suldaan Xirsi Qani waxa kale oo uu sheegay in aanay jirin wax shaqo ah oo shirkaasi ku leeyahay Boqor Cismaan Buurbadow waxaana uu tilmaamay in aanu shirkaasi ahayn mid siyaasadeed ama cid lagu xumaynayo isla markaana uu taagan yahay xilligii shirkaasi la qaban lahaa ma aha mid imika Buurmadow dhawaaqiisa ku dhashay ma aha mid cid lagu xumaynayo ma aha mid cid kale cidna lagu fogeynayo cidna lagu soo dhaweynayo hawshaasi saasay ku bilaabantay sidiina way u socotay alxamdulillah nabadeyntii ceelaf weyn way soo dhawaatay waqtigii baa la gaaray shirka guud la qaban lahaa Buurmadow miidiyaha uu ka sheegay markii xataa goobtaana lamu joogin runtii oo dabadu ku maqnaa laakiin markii imika qabanqaabadii gogasha la galay arrintii maqlay buu miidiyaha uu ka sheegay wax isaga u gaar iyo wax quseeyay midna ma aha waxa kale oo Suldaanku ka hadlay kulan ay la yeesheen madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Bixi Cabdi waxaana uu yiri madaxweynaha qaranka in ka badan 250 xubnood oo garxajaan kula shiray waxa meesha laga saarayo waxa weeyaan doorashadu maadaama ay naga dhamaatay in dadka la walaalayo dawladda iyo dadkeeda la soo dhaweeyo ma aha wax imaka dhashay oo cid lagu xumaynayo hadii loo fahmay Buurmadow inuu uga faa'iideysanayo mucaaradnimada waxay la tahay inaan intayada kale cay ku tahay oo sharci gaar ka faa'iideysan karto oo ay cid adeegsan karta maaha